الله أكبر الله أكبر الله أكبر. diinteena suuban ee nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam hogaanka u hayay calankeeda laa ilaaha illa allah waxa ay ka soo dhaxbaxday meel caan ay ku tahay shirkiga ilaahay qeyrkiisa la caabudo. aadaanka salaada wuxuu ka mid yahay waxyaalaha quruxda badan ee diinteena suuban nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam lagu maamuusana ay soo bandhigday. aadaanku waxa uu wataa mid ka mid ah shacaa'irta waaweyn ee diinteena oo ah tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala in la caabudo keligiisan loo khaas yeelo cibaadada. taasi kuma qanacsaneen kufaartii quraysh nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hor istaagday dacwadiisa. waxay ku qanacsaneen inay caabudaan ilaahyo kala duwan ayadoo allah subxaanahu wa tacaala arrinkaasi uu diiday. asaga abuurtay dhulka cirka wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala marna raalli ka ahayn in la caabudo cid aan asaga ahayn, xaqna ma aha. taasi waxaa asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim u horay naftooda iyo maalkooda. haddaba aadaanku wuxuu ka mid yahay shacaa'irta islaamka. qof kastoo muslim waxaa laga doonayaa inuu qadarin iyo maamuus gooni uu siiyo. waxaan la ogoleen marnaba aadaanka in lagu jajeeso ama si khaldan loo aadaamo. taasi waxay sababi kartaa qofka muslimka in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu agtiisa ka muteysto ciqaab jahannama, diintana uga baxa arrintaasi darteed. aadaanka wuxuu ka mid yahay fardu kifaayaha ummadda la dul saaray, lana baahan yahay deegaan kasta iyo bii'o kasta in laga maqlo aadaanka shanta salaadood uu allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ku waajib yeelay. aadaanku wuxuu ka mid yahay tiirarkeena islaamka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala arkaantiisa diinta suuban uu noogu aasaasayey. waxaana ku jira tiirkaasi shahaadateynka oo ka mid tahay arkaanuliimaan iyo arkaanulislaam.